بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. maanta shir jaraa'id baan ku qabanaynaa xarunta komishanka doorashooyinka kaasoo khuseeya arrin dhacdo baryahan suuqa lala dhex marayay oo qariib ahayd. komishanka doorashooyinku waa komishankii afraad ee waddanka xilka qabta waxaanu maxayday kala hagay oo uu maxayday kala saaray oo maxayday soo maray inba 7 xubnood oo golaha wakiilada wax dhintay iyo wax ka baxayba. intii aan joognay laba dhacdaana soo martay labada dhacdeena soo martay qariibka ahayd waxay ahayd dhacdo ka dhacday Sool xildhibaan hadda ka horeeyay iyo dhacdadan hadda oo Amroodi Jeex. dhacdada Sool waxay ahayd waxa ka baxay wasiirka biyaha waxaana ahaa Sool si aad la socotaan isxambaar iyo waxay ahayd cod marka kaalinka waxa ku jiray isxambaar waayo wasiirka meesha ka baxay ee golaha ka baxay wuxuu ku yimi isxambaar. waxa dhacday marka in dacwo nooga timi nin cod haysta oo leh anaa ku xiga codkii waa dhacdadii ugu horeysay dhacdana marka laga soo bilaabo 2005 waanu kala saarnay waxaanu ku kala saarnay inay dhacday inaanu siino ninkii ku yimi maadaama wasiirku ka baxay waa isxambaar ninkii kaydka ahaa ee ku xigay isxambaarkay ugu horeeyay ayaanu siinay. dhacdadan Hargeysa waa dhacday iyaduna ugu baax waxay ku timi 2005 komishinkii markaa joogay iyo maxkamaddii markaa joogtay documentiskii officialka ahaa ay isdhaafsadeen. maxkamadda hadda jirta ee joogtay maxkamadda sare ah iyo komishankanu labaduba midna muu joogin waqtiga ah waxay dhaxleen document ay soo direen oo komishanka markaa joogay uu u diray maxkamadda waxaanay ahayd natiijadii ku meel gaadhka ahayd ee sida rasmiga ah ee caadiyan ay u marno u tegaysay maxkamadda. maxkamaddu markay natiijada ku meel gaadhka hesho waxay haysataa 17 cisho waxay u soo gudbisaa rasmiga ayay dadka u soo bandhigtaa. waxaanu halkan ku haynaa documentkaasoo aad website-kayga ka heli doontaan oo uu saxay gudoomiyihii komishanka ee waqtigaa jiray oo Axmed Xaaji Cali Cadami shaambadii xarunta komishanka leh astaantii komishanka leh saxiixii gudoomiyaha leh oo ay u gudbiyeen natiijada ku meel gaadhka ah ay gudbiyeen kuna gudbiyeen komishanku inuu kaalinka 13aad uu ku jiro Xuseen Axmed Caydiin Warsame oo haysa 3981 kaydka shanaadna ahaa. waxa ku xigay 14 oo Maxamed Muuse Abees Faarax oo isaguna 3986 haysta kaydka lixaadna ku jira. shaambadana waad aragtaan way wada shaambadaysan yihiin waa 6dii gobolba waa documentkaas wuxuu ka soo baxay komishinkii markaa joogay. waxay maxkamaddii markaa soo rasmiyeysay oo iyadana aad shaambadeeda arkaysaan waxay soo rasmiyeysay sidii ay u qornayd. waxaad arkaysaa markaa kaalinka shanaad inuu ku jiro Xuseen uu hayso 3981 muuse Maxamed Muuse Abeesna uu hayso 3986 kaalinka lixaadna uu ku jiro iyaguna sidii bay ku ansixiyeen. waxay noqotay markaa in komishanka hadda jooga iyo maxkamadda hadda joogta ay isu gudbiyaan laba hay'adood oo sharci ah waa labadii hay'adood ugu sareeyay ay isu gudbiyaan si official ah inay maxkamaddu iyada go'aanka ugu dambaysan leh ma laha komishanku wuxuu soo daayaa natiijo ku meel gaadha waxa rasmi ka dhigta waa maxkamadda. komishankan iyo maxkamadduna may joogin laakiin documentiskii baa yaala. documentiskii markaan u dirnay waxaan maxkamaday adaa go'aanka ugu dambeeya leh waraaqaan isweydaarsanay taasuna weli way socotaa oo way soo socotaa. waxa kale oo dhacday in ay labada xubnood ee kaalinka shanaad iyo kaalinka lixaad labadooduba laba warqadood oo dacwada labada kayd
midna yahay kaydka shanaad midna yahay kaydka lixaad uu mid kasta dacwo soo qortay maxamed muuse abes waa taa dacwadiisa isagaa ku saxeexan waxaanu leeyahay anaa leh xuseen axmed caydiidda wuxuu soo qortay anaa leh labadaa dacwona waanu haynaa markaynu intaa ka tagno commissionku wuxuu markaa la xidhiidhay isagoo dacwadan labada xubnoodda eegaya qaladkaa yimi 13 sannadood ka horna eegaya wuxuu la xidhiidhay maxkamaddaanay wada xidhiidhayaan haddaba waxa dhacday in muwaadin aan xil ka hayn dalka iyo hay-adaha dawladdii inuu miidiya isla soo taagay oo uu ku hadlay qaladaad aad u fara badan oo saameeyey shacibka somalilan isagoo galay qaladaad cajiibah oo ah nin xadhkihiisii gacmaha ku sita cabdilaahi jawaan oo hore looga bartay shicibkanu inuu yidhaahdo ani oo xataa markuu hadlayey aan odhan commissionkaygii joognay ee wakhtigaa 2005 ka joognay waxaanu go'aan ku gaadhnay oo markasta leeyahay anaa sameeyey anaa haya anaa qabtay wuxuu galay oo uu qaladaadka ku galay inuu soo bandhigay dokumenti ama waraaqo been abuurah oo uu ummadda ugu sheegayo inuu yahay sax kuwaasoon lahayn shaambaddii kuwaasoon lahayn saxeexii kuwaasoo aan lahayn astaantii commissionka ee waraaqa uu soo teebgaraystay uu yidhi anaa ku dhawaaqay oo waa kaa waa sax waa been abuur hawlihii hay-adaha dastuuriga ah xidhiidhkii ay sameeyeen ee shaqada faraha ku hayeen oo uu ka garnaqay oo uu yidhi anaa go'aamiyo hadday maxkamaddu soo saarto kartaa anigu aan naqday mid ka duwan waa qalad wuxuu kaloo ku kacay inuu kiciyo dadweynaha iska hor keenay been abuur oo uu ku kiciyey qasna ku abuurayo jahawareer dadweynaha taana caddayntiisaa looga fadhiyaa wuxuu daadifeeyey xukunka soo socda ee aanu xukumi doonno ayuu daadifeeyey wuxuu hi anaa xukumay waxaana le xuseen axmed caydiid taana waa looga fadhiyaa waxaanu xaq u lahayn oo aanu qof muwaadani haysan karin dhugmad sharciya inkastoona dhugmad sharciyaba haysan inuu ku faano uu yidhaahdo dhugmentiskii laga soo bilaabo commissionkii ugu horreeyey ilaa haddaan haystaa gurigaygan ku haystaa oo yaa u sharciyeeyey sawirradii waxaan haystaa xildhibaanadoo dhan min 2 sawir oo yaa u sharciyeeyey taasna haddee dawladda ka jawaabiya hay-adaha sharciga ku leh waxaanu aragnaa markaa u aragnaa inuu ninkaasu ka hor yimi shuruucdii u yaallay dalkan been abuur khalkhal iska horkeen uu shicibkana doonayo inuu nacsiiyo kana hor keeno komishinka doorashooyinka qaranka ee xaadirkan fadhiya isagoo weliba ahaa xubin commission inuu komishinka sirihiisa bannaanka dhigo oo isagoo maanta ka maqan dhowr iyo 10 sannadood inuu yidhaahdo weli waan haystaa guryahan ku haystaa waxaan ku haystaa sanduuqayga maxay komishinku wuxuu lahaa waad mahadsantihiin waxaan u sheegaynaa shicibka somalilan dadweynaha 3 xisbi qaran xukuumadda hay-adaha sharciga ah in wax dhugmada oo komishinkanu intuu joogay 4 sannadood iyo waxoogaa buu joogay wax dhiman uu gubay ama lumiyey oo halkaa ugu yimi habay yaraatay inaanay jirin taana isaga caddayn doona hadduu dee wax caddaynahayo halkanu ku gubnay goortaanu gubnay iyo sidaanu gubnay isagaa laga rabaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu